taliyaha cusub waan soo dhaweynayaa waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay ku asturo xilka una fududeeyo waxaan leeyahay waad nasiib badan tahay waxa ku soo aaday waqti laga adkaaday khawaarijti oo kaliya ay noo harsan tahay inaynu cirib tirno ama ka sifayno dalka taliye anigoo ku xisaabtamaya aqoonta dheer aan ku leeyahay anigoo ku xisaabtamaya aqoonta iyo muddada booliska dhexdeeda ku jirtay anigoo ku xisaabtamaya qofnimadaada iyo dhalinyarada waqtiga aad ku jirtay ee dhalinyaramada ah waxaan hubaa inaad ka soo dhalaali doonto xilka lagu magacaabay waxaad haysataa oo garbahaaga taagan dhammaan dawladda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo u horeeyay madaxweynuhu anagoo fulinayna amarka madaxweynaha jamhuuriyadda ahna hogaamiyaha dagaalka khawaarijta mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan farayaa sidii uu noo faray inaad la timaadaan talo cusub haddaad tihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed oo wixii talo hore ahaa sidii aan rabnay uma shaqayn sidaas darteed waxa loo baahan yahay inaynu fikir cusub iyo talo cusub keeno anigoo ka faa'iideysanaya fursadan maadaama goobta ay ku dhan dhammaan saraakiishii ama hoggaanadii ugu sarreeyay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan farayaa inaad diyaar u noqotaan waxqabad iyo isla xisaabtan dhaba xaradheere ayaa xora xamarna way kala xidhan tahay aqligu ma ogolaanayo dadka Soomaaliyeed madaxdan u nahay inay naga ogolaan maayaan sidaas darteed waxa loo baahan yahay inaanu la nimaadno farsamo iyo tab cusub oo aanu gaar ahaan caasimadda magaalada madaxda ku soo celinayno nabadgelyadeeda iyo dhammaan goobaha kale ee laga saaro khawaarijta sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn in aynu amnigeeda sugno